Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, ugu yaraan 15 qof ayaa dhintay, 22 kalena waxaa laga cabsi qabaa inay ku xanniban yihiin burburka guri uu haleelay gantaal ay soo rideen ciidamada Ruushka ee weerarka ba'an ku haya magaalooyinka gudaha dalka Ukraine. Mid ka mid ah dadka gobolka Donetsk oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in gantaalada ciidamada Ruushka ee laga soo tuuray saldhigyada cusub ee Ruushka uu ka sameystay magaalooyinkii ugu dambeeyay ee gacanta uu ku dhigay ay ku dhaceen guri ka kooban 5 dabaq oo ku yaala gobolka Donetsk, sida ay horey u sheegeen mas'uuliyiinta dalka Ukraine. Moscow ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay garaaceen saldhig ciidamada Ukraine ee lagu kaydinayay hubka M77 ee Mareykanku uu soo saaray ee noocooda cusub, isla markaana dhawaan lagu wareejiyay ciidamada Ukraine si ay ugula dagaalamaan ciidamada Ruushka ee duulaanka ku ah gudaha dalka Ukraine. Andrey Yermak, oo ah madaxa shaqaalaha madaxweyne Volodymyr Zelensky, ayaa ku sheegay Telegram-ka in weerarku uu ahaa weerar kale oo argagixisanimo ah, sidaas darteedna ay tahay in Ruushka loo asteeyay inuu yahay dawlad argagixiso.